بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halka salaamaya ummadda Soomaaliyeed ee meel walba naga daawanaysa hadalkaygan yar ee kooban ee saako wuxuu daba socdaa kii shalay oo aan ka hadlay qaadka heerariga oo laga yaabo dadka qaar inay khalad u fasirteen wixii aan idhi shalay waxaan ka hadlay oo aan doonayaa inaan caddeeyo qaadka heerariga ee si Soomaaliya yimaada oo dadka qaar yiraahdeen qolay u xidhan tahay ama dad gooni ah ayay u xidhan tahay muhiimadda ugu weyn waxay ahayd inaan ka caddeeyo inaan jaadka heerariga cid gooni u xidhnayn cid wal oo doontaaba soo dejisan karto waxaa looga baahan yahay qofkii doonaya inuu arrintaa galo inuu sharciga qaato laysanka qaato ruqsadda cashuurtana bixiyo intaasoo bay muhiimadu hayd marka haddii khalad la fahmay shalay ama si khalad loo turjuntay arrintu heerariga ay ku saabsan tahay qaadka heerariga ay ku saabsan tahay oo aan cid gooni u xidhnayn. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.